asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo ay timihiisu ciroobeen. markaas buu nebi ibraahim calayhi salaam rabbigiisa ku yidhi, ilaahayow waxaani waa maxay? wuxuu alle subxaanahu watacaala ku yidhi, haadaa waqaarun yaa ibraahim, kani waa waqaar ama weyneyn ama sharfid lagu sharfayo yaa ibraahim. wuxuu yidhi nebi ibraahim calayhi salaam, yaa rabbi zidnii waqaara, ilaahayow waqaarka ii ziyaadi. markii uu alle subxaanahu watacaala doonay inuu nafta ka qaado nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam, malakulmowdka ayaa ku soo degay oo ku yidhi, assalaamu calayka yaa ibraahim. wuxuu nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam ugu jawaabay, wacalayka assalaamu yaa malakalmowt, adaacin am naacin? ma nafta in aad iga qaaddo ayaad iigu timid, mise booqasho ayaad igu timid? qaala bal daacin yaa ibraahim. wuxuu ku yidhi, ibraahiimow waxaan kuugu imid si aan nafta kaaga qaado ee soo ajiib. markaas buu nebi ibraahim calayhi salaam ku yidhi, fahal ra'ayta khaliilan yumiitu khaliilah? ma waxaad aragtay saaxiibkiisa dilaya? wuxuu yidhi, malakulmowdka ayaa iska laabtay ilaa uu alle subxaanahu watacaala hortiisa intuu istaagay ku yidhi, ilaahi qad samicta maa qaala khaliiluka ibraahim. ilaahayow waad maqashay waxa uu yidhi saaxiibkaaga ibraahim. wuxuu alle subxaanahu watacaala ku yidhi, yaa malakalmowt, idhab ilayhi waqul lah, hal ra'ayta xabiiban yakrahu liqaa'a xabiibih? malakulmowdow, u tag oo waxaad ku tidhaahdaa, ma waxaad aragtay saaxiib diidaya inuu la kulmo saaxiibkiisa? ina alxabiiba yuxibbu liqaa'a xabiibih. saaxiibku wuxuu jecel yahay inuu la kulmo saaxiibkiisa. kadibna wuxuu nebi ibraahim calayhi salaam malakulmowdka ku yidhi, malakulmowdow, itusi sida aad nafta uga qaaddo qofka mu'minka ah. markaas buu malakulmowdku ku yidhi, wejigaaga iga jeedi. markaas buu wejigiisa ka jeediyey, kadibna waa uu soo eegay. markaas buu wuxuu arkay isagoo leh suurad qof dhallinyaro ah oo aad u qaab qurxoon, oo dharkiisuna ay aad u qurux badan yihiin, oo aad u carfaya, oo jidhkiisuna uu aad u qurux badan yahay. markaas buu nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam ku yidhi, wallaahi qofka muslimka ah wejigaaga mooyee wax kale oo farxad geliya haddii uusan la kulmi lahayn waa ay ku filnaan lahayd. kadibna wuxuu ku yidhi, itusi qaabka aad nafta uga qaaddo qofka gaalka ah. markaas buu malakulmowdku ku yidhi, ibraahiimow, adigu ma awoodid middaas in aad aragto. balse nebi ibraahim calayhi salaam ayaa ku adkaystay in uu tusiyo sida uu nafta uga qaado qofka gaalka ah. kadibna malakulmowdka ayaa ku yidhi, wejigaaga iga jeedi. markaas buu ka jeestay oo kadibna soo eegay. markaas buu wuxuu arkay suurad qof bani aadam oo aad u madow badan, oo lugihiisu ay dhulka joogaan, oo madaxiisuna uu cirka joogo, oo muuqaalkiisu uu u ekaa shaygii ugu foolxumaa oo aad weligaaga aragtay, oo tin walba oo timaha madaxiisa ka mid ah hoostooda uu ka soo baxayay dab ololaya. kadibna nebi ibraahim calayhi salaam ayaa suuxay kadib markii uu arkay muuqaalkiisa. markii uu suuxdinta ka soo kacay oo malakulmowdkiina uu ku laabtay muuqaalkiisii hore, wuxuu nebi ibraahim calayhi salaam ku yidhi, malakulmowdow, wallaahi qofka gaalka ah haddii uusan muuqaalkaaga mooyee wax kale la kulmi lahayn waa ay ku filnaan lahayd.
sidoo kale waxay culimmada taariikhda iyo siirooyinku leeyihiin markii uu alle subxaanahu wa tacaala doonay inuu nafta ka qaado nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu alle subxaanahu wa tacaala u soo diray malakulmowdka isagoo iska soo dhigay suurad oday duqoobay oo duqnimo awgeeda tabar beelay markaas buu nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam isagoo xilligaas dadka raashiin u qaybinayay wuxuu arkay isagoo oday weyn ah oo qorraxda dhex taagan markaas buu wuxuu nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam damcay inuu odayga raashiinka siiyo markaas buu wuxuu u soo diray dameer si uu u soo fuulo oo uu ugu yimaado markaas buu odaygii wuxuu bilaabay raashiinka markii ugu horraysay ee uu darsaday meeshii laga rabay inuu afka gashado wuxuu la aaday indhihiisa markii labaadna wuxuu la aaday dhegihiisa markii saddexaadna wuxuu la aaday sankiisa kadib ayuuna afkiisa gashtay sidoo kale markii uu afka gashtay ayuu raashiinkii isla markiiba gadaal uga soo dhacayay markaas buu nebi ibraahim calayhi salaam aad ula yaabay xaalkiisa wuxuuna si fiican u eegay wejigiisa nebi ibraahimna calayhi salaam wuxuu horay rabbigiisa u soo weydiistay inuusan nafta ka qaadin ilaa uu isagu ka dalbado inuu nafta ka qaado markaas buu nebi ibraahim calayhi salaam odaygii ku yidhi odayahow waa maxay sidaan aad samaynayso maxaase sidaan kuu galay markaas buu odaygii ku yidhi ibraahiimow duqnimo ayaa sidaan ii gashay markaas buu nebi ibraahim calayhi salaam ku yidhi meeqa jir ayaad tahay markaas buu wuxuu odaygu u sheegtay cimri 2 sano oo keliya ka weyn nebi ibraahim calayhi salaam cimrigiisa markaas buu nebi ibraahim calayhi salaam dib u fikiray wuxuuna is yidhi anigana inaan sidaan noqdo waxaa iga dhiman 2 sano oo keliya wallaahi hadday nolosha ila dheeraato aniguna waxaan noqonayaa odaygan oo kale waxaana garan weyn doonaa meesha uu afkayga ku yaallo sida odaygan ku dhacday oo kale markaas buu nebi ibraahim calayhi salaam samada u jihaystay oo gacmihiisana taagtay isagoo alle subxaanahu wa tacaala u khushuucsan ayuuna wuxuu yidhi allaahumma qbidnii ilayk qabla an abluga ilaa ardali lcumur ilaahayow xaggaaga ii oofso ka hor inta aanan ku laabanin cimriga carruurnimada markaas buu malakulmowdku u soo istaagay oo nafta ka qaaday oo rabbigiisa la kulansiiyey kadib markii uu cimrigiisa ku dhammaystay wanaag iyo khayr wuxuu nebi ibraahim calayhi salaam adduunyada ku noolaa 200 oo sano waxaa kaloo la sheegaa inuu adduunyada ku noolaa 195 sano waxaana lagu aasay xaaskiisa saara qabrigeeda agtiisa waxaa jiraan riwaayado kala duwan oo si kala duwan uga kala warramaya oofsashadii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam khaliiluraxmaan waxaa la yidhi markii uu alle subxaanahu wa tacaala malakulmowdka u soo diray nebiyullaahi ibraahim si uu nafta uga qaado nebi ibraahim calayhi salaam ma uusan fahmin malakulmowdka balse waxaa fahmay wiilkiisa isxaaq iyo xaaskiisa saara markaas bay waxay bilaabeen in ay ooyaan kadibna waxaa la ooyay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam kadibna malakulmowdka ayaa isaguna la ooyay naxariis uu u naxariisanayay awgiisa kadibna nebi ibraahim calayhi salaam ayaa intuu isxaaq iyo saara u soo jeestay ku yidhi waad ooydeen ilaa aan aniguna ka ooyay oo ninkii martida ahaana intuu ooyay iska tagay markaas buu isxaaq ku yidhi aabbow marti ma ahan balse waa malakulmowdka calayhi salaam
haddaan ogaan lahaa inuu aniga i doonayo ama uu hooyadayda doonayo ma aanan ooyeen, balse waxaan u malaynayaa inuu adiga ku doonayo. Kadibna malakulmowdka ayaa intuu samada ku laabtay wuxuu yidhi, ay rabbi, ji'tuka min cindi cabdin laka maa fi lardi bacdahu khayr. Ilaahayow, waxaan agtiisa ka imid addoonkaaga oo gadaashiisa wax khayr ah aysan dhulka ku harin. Kadibna wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala ku yidhi, anigu waan ka warqabaa oo waan ogahay addoonkayga, soco oo nafta ka soo qaad. Kadibna malakulmowdka ayaa soo laabtay asagoo iska soo dhigay oday da' ah oo aad u duqoobay. Markaas buu wuxuu dhex galay beer uu cinabku ka baxayay. Kadibna wuxuu bilaabay inuu cuno cinabka, isagoo cinabka biyihiisu ay ka soo dareerayeen garkiisa. Markaas buu Nabi Ibraahim calayhi salaam intuu eegay ku yidhi, addoonkii Ilaahayow, meeqa sano ayaad jirtaa? Markaas buu wuxuu u sheegtay Nabi Ibraahim calayhi salaam da'diisa oo kale. Markaas buu Nabi Ibraahim calayhi salaam dhimashada tamaniyey. Wuxuuna yidhi, yaa Rabb, laqad ishtaqtu ilaa liqaa'ik. Ilaahayow, waxaan u xiise qabaa la kulankaaga. Markaas buu malakulmowdku ubax u dhiibay. Ubaxii markii uu carfisaday ayuuna sidaas nafta uga qaaday calayhi salaatu wassalaam. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.